argagaxa iyo saska ugu badan waxaa dareemaya da'yarta sida Cawaale Gaamir Dhiirane oo 17 sano jir ah. waxaan aragnay maalinka waxaan weli arkin aanan maqlin hub waaweyn oo la isku garaacayo oo weliba lagu xasuuqayo shacabka magaalada Garbaciis hooyadii oo la gowracayo ilmihii inta dusha ayada ku sidata laga saaro ma wiil baa ma gabadh haday gabadh noqotana waa la iska dhaafaa hadii la doonana waa la dil aqal baan ku galay 67 qof 67 qof waxaan kaga soo baxnay 13 qof weliba ninkani garab jooga ku jiro 13 ka qof kaga soo baxnay 7 qof oo ku dhanbaa dhaawac 6na caafimaad baan ku qabnaa waxaan weli arkin maan aragn qof galgalanayo ama walaalkaada ama adeerka ha ahaado ama qofku doonay qofkaad garanaysid ka damqanayso galgalanayo muudkiisii halka ayaa oo jeedin karay maskaxdii oo adig kugu dul daadanaysa dhiigi madhi saadiyali waan sasnaa habeen kasta waana dib aan loo adkeysan karin muudkaagii oo jeedin karin kan waad garan kan kale waad garan waa 100 qof oo wada garanaysid saadiyalaysa way badan yihiin wallahi saama way badan yihiin cid waqtigii la joogtay oo aan meydkoogii ugu baaq dhacay oo jeedin kari waayay ayaa jirtay oo awoodi kari waayay waxaa jiro mid walaalkay oo dhaawac oo imika adzaabo ku jiro 3 hal baa ku dhacday mid xoog ka dhacday way jabisay midna jilibka dushiisa ka dhacday oo waa xabad waa cad xabadna way ku jirtay waxay ka dhacday halkan masjidka ka dhacday marka xabadii baa awoodi kari waayeen wallahi marka 3 walaalaha ayaa ku jirna meesha mid gabadh bay ahayd marka tii gabadhii baan ku dul dhaawacmay intee aan iyada ka taxadariyay ama aan isga dhigay iyadii ku dul dhaawacmay dad badan oo xitaa waqtigii aan ka soo meesha ka soo saari kari lahay xitaa awood oo aan u weyn darteed ayay dadkii meesha ku bariyeen kadibna xaqii ayay ku dhinteen ku geeriyoodeen dad waqtigii la dhaawacmay ay naftu ku jirtay dirqi baan ku soo baxnay